السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وايد السلام هيا وواسك دقبلوها قبلو فارح ولا الكيس معوكي كيرا بشير بالله متاناين حسن قرو ساعب كيس قرشو درس كيس كنو لو راونا قرسيكوسا هاجا بكجا لقتي معانا الشورية بناوين شنطا بقى بقوري رين نبض إيا نولول قعمها إلهي إذن مقويو سود وادا سيشر قرأي عجلدن قرسية بيت والبا إيا ميل والبا كتورة إذكو مهاسن آديان لبدان مالي واكرا مغرين دقبلو is back نبض إيا نولول ومستقبل كأمد الصوماليين وي عناصيرتا كوهب ستي مقرري ساي ودن نمدي الصوماليين وبدلي قبيالده وانو كقوري سنيننا شيشيها دال كناك وسوها قلتاقيو دمعسان بدين الصوماليين إني دب ولو ريغان وانو كقوري سنيننا إن شاء الله هدو إلهي يرادو دمانتي سود وادا وواسك واسيدا شيرغري عجلدن غارسيه بيج والبا iyo meel walba ku tuura idinku maasan laba arimood yaan u soo galayna ka hadlo labada arimood waxay kala yihiin safarta madaxweyne xasan sheekh maxamuud isdaba jooga ah ee nasashada aan lahayn ee lacagaha faraha badan lagu qasaarinayo ee lagu tagay wadamada Kenya Djibouti iyo Eritrea arrin qusaysan ka hadlaya iyo waxaan ka hadlayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkeena Soomaaliya dhawaan loo dhaariyay xalfad loogu qabanayo dalkan Mareykanka gaar ahaan magaaladiisa Minnesota oo ceeb iyo fadeexad ay dulhay haabayso aadiyad marka koobaad sidaan la socono in ognahay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud markii sida loo dhaariyay ay dalka la wareegay waxay yiraahdeen dalka abaar baa ka jirto ninkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur bay waxay u magacaabeen ergeyga gaarka ah ee abaaraha iyo dhibaatooyinka dalka jira inuu magaranaysaay wax ka qabto sida la socono Cabdiraxmaan Cabdishakuur hadal uu dhawaan jeediyay wuxuu yiri xalfadaha lagu qasaarinayo kumanaanka kun ee dollar ee boqolaalka kun ee dollar gaarayo ee masaakiin Soomaaliyeed baa gaajaysan ee waxa loogu taro ayuu yiri saan la soconana waddanka Mareykanka iyo wadamada Yurubiyaanka waxa loo soo diraya oo waliba xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha laga soo diraya dhaqaale aad u tiro badan oo lagu niikinayo oo lagu heesayo oo magaranaysaa ummad gaajaysan bangigood iyo accountadooda laga soo bixinayo arintaas aan ka hadli doonaa marka koowaad waxaan ku hormarayaa safarta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee uu ku tagay dalka Kenya saan la socono dawladda Kenya daris baan u nahay saan la socono dawladda Kenya waxa nagala dhaxeeyay dacwad dhinaca badda ah dacwadii dhinaca badda ahayd waa la xugmiyay waxaana loo xugmiyay dalkeena Soomaaliya inaan magaranaysaa badda anagu xaq u leenahay iyo maxkamaddu cadays Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yimid dalka Kenya waxa uu la kulmay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxay wada galeen heshiiskaas oo inta badan ummadda laga qariyay in yar la soo bandhigay dawladda Kenya waxa jiray jaad ay dalkeena keeri jirtay oo dhaqaale badan oo lacag badanna ay dib dalkeeda ugu soo celin jirtay dalkeena Soomaaliyana ay keeni jirtay muqaadaraad iyo baalka qaadka loo yaqaan aadiyan Xasan Sheekh Maxamuud heshiiska uu la galay dawladda Kenya waxa kamid ah oo maxaa Daily Nation ka idaacadaha ugu afka dheer dalka Kenya ay qoreen in magaranaysaa diblomaasiyadnimadii u dhaxaysay labada dal dib loo soo celiyo oo ay ku jirto arinta badda oo ay yiraahdeen dawladda Kenya oo diiday maxkamadda Hague go'aankii ka soo baxay oo ay ganafka ku dhufatay in macnaha arinta ayada ah dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda Kenya ay ka wada hadlaan gudina loo xil saaro arinta ayadana magaranaysaa lagu dhameeyo labada dal magaranaysaa xal u dhaxeey oo aanan hayn xalkii iyo go'aankii ay gaartay maxkamadda caalamiga ah ee Hague taasi waxay cadeynaysaa oo ummadda Soomaaliyeed tusaysaa Xasan Sheekh Maxamuud waagi badda dacwadeeda ay socotay ee asagana uu mucaaradka ahaa inuusan arinta badda uusan marnaba ka hadlin in dawladda Kenya oo arintaas awgeed dawladda Soomaaliyeed ku dandaasanaysay uusan waligi asoo mucaarade oo madaxweyne hore soo noqdo haddana madaxweynaha uusan arintaasi waligi uusan naqdin haddaanu nahay ummadda Soomaaliyeed haddaanu nahay dadka dhulka iyo badda iyo bariga iyo ciidda Soomaaliyeed iskale haddaanu nahay ogolaan mayna taaka dhulkeena kamid ah inay dawladda Kenya hunguriyeyso in siyaasi caada qaata ah oo ummadda Soomaaliyeed aan danaheeda iyo magaranaysaa mustaqbalkeeda ka fikirayn uu saxiixo uu heshiis kula galo marnaba ogolaan mayno waanu mudaaharaadaynaa waanu ka hor imaanaynaa
sida ummadda Kenyaanku ay u raadinayaan inay dhulkanaga dhacaan ayaan anagoo ummad Soomaaliyeed ah dhulkanaga u difaacanayna intaanu nool nahay caruurtanada nool yihiin kuwana wowga u nahayna ay nool yihiin dhici mayso siyaasi caada qaataa inuu dalkeena gorgortan kula galo wadaba kala sheey aad iyo aad saa la socono madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa la doortay 15 May maantana waxa weeye waa 17 baan u maleynayaa 16 July weey xafiiska wuxuu joogaa muddo bil iyo magaraysaay waxa 2 bilood ka yar buu joogaa bil iyo dhowr iyo 10 cisho joogaa xasan sheekh maxamuud bisha uu xafiiska joogay wuxuu u safray wadanka la yiraahdo Imaaraadka wuxuu u safro kale ta wadanka la yiraahdo Turki wuxuu u safray Eritrea wuxuu u safray Kenya wuxuu saacado yar oo kooban soo Kenya ka soo noqday oo haddana u safray dalka Djibouti diyaaradaha iyo safarkaas adarkaysan waxa ku baxayo dhaqaale gaaraya $1 milyan saa la soconana ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed sida uu Xasan iyo maamulkiisa ay noo sheegeen waxa dalka ka jirta macaruul waxa dalka ka jirta abaar waxay sheegeen in mishaaraad aan loo haynin shaqaalaha dawladda waxay sheegeen in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo muddo 5 sano la soo dhisay mishaarkooda uu gabaabsiyay Xasan marka danaha uu wareegayo ee diyaaradaha u raacayo ee dhaqaalaha badan ugu baxayso garan mayno wax ummadda Soomaaliyeed dib ugu soo noqonaya ma madaxweynaha markuu adduunyada caalamiga ah sidaan ognahay madaxweynaha markuu 6 bilood joogo ee institutionkiisa uu barto ee dawladdiisa uu dhiso wasiiradiisa uu dhiso ee wasiirkiisa arrimaha dibadda uu magacaabo iyo madaxweynaha safar bilaaba safarkana ma aha mid macnaha sidii maama jaadley ah oo jaad soo xirayso in kolba diyaarad la raaco hawada lagu sii jira ma xasan sheekh maxamuud arinta ayada waan ku dhaliilaynaa waxaanu leenahay dalka abaar ba ka jirto dhaqaale darra ka jirto safaradan bila macnaha ah in macnaha soo kordhinaynin ee dhaqaalihii ummadda yaraa ee cashuurta ummadda yareed ma garanaysaa lagu qasaarinayo waa la soo dhaweeyay iyo roog guduudan baa la dhigay oo wax macnaha ummadda Soomaaliyeed u soo kordhin waa kugu cambaaraynaa aad iyo taa markaan halka kaga gudbo waxaan kale oo soo dayn doonaa cadaalad aad iyo aad ma garanaysaa xogteeda iyo warbixinteeda wadato oo xasan safartii uu ku tagay dalka Eritrea qosayso iyo macluumaad dhameystiran insha Allah haduu ilaahay waxa ka hadlay qodobka labaad ra'iisul wasaaraha cusub ee la doortay ee dhawaan la dhaariyay waxa loogu dhigay xalfad magaalada Minnesota ee gobolka Minnesota magaaladiisa Minneapolis xalfadaasi waxa la soo diray dhaqaale aad u tiro badan oo gaaraya 100,000 ilaa iyo 50,000 inta u dhaxayso waxa loo soo diray gobolka Minnesota waxa la kireeyay hoolka weyn ee loo yaqaan Confessor Satarka magaalada waxa laga qaban qaabinayay fanaaniin nikiyo ciyaaro magaraysa la soconana ra'iisul wasaaraha maalintii la dhaarinayay ee xil wareejintiisa wuxuu sheegay dalka inay abaar ka jirto garan maayo sababta uu dhaqaale ugu bixinayo dalka Mareykanka sababta uu niko iyo magaraysa daba la luxayo dadkiisi oo gaajaysan oo dhibaataysan uu dhaqaale ugu soo dirayo dalkan Mareykanka si loogu dabaaldego si aad la socotaan ummadda Soomaaliyeed hadalkayga aad u dhageysto reernabadii nolol soo dhawaada sheer gareey cadaladan gaarsiya page walba idinku mas madaxweyne maxamed abdullaah farmaajo 5 sano ee dalka uu hogaaminayay ma dhicin dhaqaale ummadda Soomaaliyeed ay leeyihiin oo bilaa macna lagu bixiyay oo loogu niikinayo ma dhicin ummadda Soomaaliyeed baa dib loogu celinayay askariga Soomaaliyeed baa mishaarkiisa loogu kordhinayay askariga Soomaaliyeed baa dareyskiisa loogu gadayay cuntadiisana loogu kordhinayay dawladda cusub ee hadda uu ra'iisul wasaare Xamse iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud hogaaminaya waxaan dareemaynaa in fata dugleyntii iyo niikadii iyo munkarkii iyo magaraysa faasiqii uu soo noqday ummadii oo gaajaysan oo la arkayo oo abaar jirto oo la socdo in magaalada Minneapolis caawa Confessor Satar lagu kareeyo $50,000 aad iyo aad baan arinta ga xumaa ceebta marka xalfadan ka dhacday baan warbixinteedo dhameystiran idin soo gudbin doona haddana aan idin ka sii hordhacaya waxa dhacday in fanaaniin reer Minnesota dhaqaale badan loo qaybinayay la diyaarinay xalfadan oo qaban qaabinayeen dad ku heeyb ah ku reer ah ra'iisul wasaare Xamse oo waliba si xun oo qaab daran oo qabiilaysan magaalada ula dhaqmo ra'iisul wasaaraha haduu ra'iisul wasaare qabiil u yahay oo jifay yar oo magaraysaa hoose uu ra'iisul wasaare u yahay dajifada on baa waligeed wadan doonto waligeedna buubuunin doonto waligeedna dhabarka saaran doonto hadii uu yahay ra'iisul wasaare Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed u dhaxeeyo oo ummadda Soomaaliyeedna u siman tahay de ummadda Soomaaliyeed kursigeeda ee prime ministerka ku fadhiya waxa dhacday in xalfadan qaban qaabadeedii rag ku jifa ah ra'iisul wasaaraha iyo dumar ku jifa ah qaban qaabinayeen
inay bilaabeen laga tagay daarood iyo hawiye laga tagay absamana laga tagay loo gudbay jifo hoose oo magaranaysaay aad u foolxun oo la yiri ra'iisul wasaaraha waa reer Cabdille magaranaysaay fanaaniintii magaranaysaay qabiil loo kala qaaday oo si xun oo qaab daran warbixintaas oo detailkeedii wadato oo siday tahay u tafatiran aan soo gudbin doono waxa dhacday gabar Soomaaliyeed oo fanaaniinta ugu caansan Minnesota ka tirsan oo la yiraahdo Berlulo oo magaranaysaay qabiil ahaan hadii la yiraahdo ra'iisul wasaaraha ay isku reer yihiin oo qabiil hadii la dhaho laakiin reernimadii waxa waa basasha intii la kala qaaday hoos loo dagay oo la kala dhintalay oo la yiri fanaanada la yiraahdo Rodo Berlulo waa ra'iis saaq in la yiraahdo oo ra'iisul wasaaraha oo reer Cabdillah oo reer Ugaaskooshira ay rag magaranaysaay ku reer ah xalfada qabanqaabinayeen oo gabadh la yiraahday ila cagdar baad isku reer tihiin ila cagdar baad isku jifatihiin iyo jigjigaad ka soo jeedaa iyo waan gali doonaa hawshaas oo waxaan hayaa tafatiran oo soo gudbin doona insha Allah haduu ilaahay lagu yiri gabadha magaranaysaay banaanka la dhigay si qaab daran oo xun loola dhaqmay anigoo hadalka gadaal u dhiganayo oo siday wax u dhaceen iyo ragga ka dambeeyo ay is og yihiin iyo qaabkay u hadleen ay is og yihiin iyo qaabka hadda arinta socoto ee magaranaysaay TikTok iyo meelaha ka socoto lagu dawaqay ee isdaba haysato oo soo gudbin doona insha Allah duulaan wadi soogtii ragga arinta ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha haduu jifay yahay ee uu reer yahay oo reer Cabdillah uu noqdo oo gabdhihii fanaaniinta ah ee Soomaaliyeed ee la kala reebayo la leeyahay gabadhan waa majarteen ha gasho tan waa magaranaysaay kani waa magaranaysaay abgaalku ha gar oo la yiraahdo Rodo Berlulo waa reer Isaaq oo reer Isaaq iyo Maxamed Suweer la kala qaado oo la yiraahdo barnaamijka reer Cabdillah wato oo Xamsa u noqday reer Cabdil adeerowde Soomaaliya waa Soomaali weyn qofka ka dagto oo reer kala qaado oo reer kala dhantaaro oo fanaaniinta ummadda Soomaaliyeedna qabiil u kala eexiyo oo magaranaysaay gabdhaha Soomaaliyeedna lagu kala sarreeyay magaaladan waanu arkaynaa Xamse xamar buu ra'iisul wasaare ka yahay ummadda Soomaaliyeed oo dir iyo hawiye iyo daarood iyo digil iyo mirifle leh yu ra'iisul wasaare u yahay oo laga doonayaa inuu cadaalad falo Xamza waxaan ku leeyahay kulli cadaaladdan waa daawan doontaa warbixintan oo dhameystiran iyo ceebta Minnesota ka dhacday iyo qaabka ragga aad soo wakiishatay iyo dumarka xabadka qaraacanaya ee yiri anagu reer Cabdillah nahay reer Isaaqna arki mayna yiri warbixintaas oo dhameystiran yaanoo duqbilow bartan ka soo gudbin doona insha Allah weligeyba waxaan ahay nin xaq u hadlo weligeyba waxaan ahay nin ummadda Soomaaliyeed ee la dulmayo ee la doonayo in magaranaysaay cagta madaxa laga saaro nin cagta ka dhuftaanay reer nabad iyo nolol insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo reer nabad iyo nolol waa guuleysan doona xasanna safartan faraha badan ee habeen iyo maalin u sii socdo ma mid ummadda Soomaaliyeed u soo kordhinaya wanaag ma mid ummadda Soomaaliyeed ku soo kordhin doona barwaaqo waa mid maanta jaadkii la mamnuucay ee Kenya aad u farxaysay leedahay ummadda Soomaaliyeed muqaadaraad iyo jaad baan dib u geynina waxa soo deyn doona labada cadaalad ka hadlayso ragga iyo dumarka qabanqaabinayay dadka nagiyo gaajaysan Xamsi ra'iisul wasaaraha ay dhahayn anigu ma oran waa reer Cabdillah la yiri reer Cabdillah ahaan xalfada caawa loogu qabanayo magaalada ana reer Cabdillah ka dhash laakiin dooni maayo dulmi iyo ummadda Soomaaliyeed in loo qabiileeyo ummadda Soomaaliyeedna magaranaysaay gacanta la geliyo oo magaranaysaay la soo warjigjiga waxa ka socdo iyo Minnesota hadaan ummadda la mideynayno qabiil ahaan loo mideynayno Soomaali ahaan loo mideynayno oo kor loo wadayno calanka buluuga kor loo wadin haday hoos u dagto duqbulow hoos buu dagayaa basasha meesha hoose soo hartuuna qabsan doona insha Allah haduu Ilaahay shargareey cadaladan gaarsiiyo page walba iyo meel walba ku tuureeyay ko maasan laba cadaladood baa soo deeraya arinta ciidamada ee Eritrea iyo arinta fanaaniinta iyo xalfada dhaqaalaha uu Xamsa ku soo diray Xamsow umadaadi baa gaajeysan dhaqaalaha soo dirtay magaalada ceeb baa ka dhacday dadka aad wakiilatay iyo dadka samaysay ummad walaalo oo wada degan oo meeshan is aasaysay oo qaaraan iyo wax walba ay ka dhaxeeyeen yaa la yiri Berlulay Rodo Berlulay reer Isaaq baa tahay oo reer Cabdillah weeye Xamsi oo reer Isaaq waxba kuma laha oo la yiraahdo in cagjar baa iraadeerkaay oo gacanta la geliyo raggi ka dambeeyay iyo dumarkii ka dambeeyay magacyadoodii iyo waxay ku hadlayeen iyo waxay sameeyeen iyo magaalada wixii ka dhacay
ياد برتن مالمها صوص سعودية سعادة صوص سعودو مسلسل أهان وداون دونتان إن شاء الله دولارات ومدى الصوماليين هالله ترى الله حمزة ودغالان تكون بحنيسين مينيسورا هو يدا أفمدو بيلانتو أي كويسو عيالكي وقرار كنقضي بيام معان وباهن اسبيتالانتو ام سي اي وسن كدرن دوبل كوركيدا اللي اسكو دلي ومدو بيلانتا اسكو دليش يعني كم من الصوت كدرتي ميك اب لغو مرسدو او صور كاغا للخو دبل للخو او مد لغو كلا دله تاسا دانتان كله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته